السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iyadoo carruurtu xilliga ay yaryar yihiin ay tahay marxalad xasaasi ah sidoo kalena qaabka korriinkoodu uu saameyn ku yeesho xataa marka ay weynaadaan ayaa haddana waxa halka ah cunitaano iyo cabitaano qayb weyn ka qaata qaabka korriinka carruurta ee maskaxda iyo jidhkaba kuwaas oo ay ka mid yihiin caanuhu waxay carruurta ka caawiyaan korriinka dhinaca lafaha ilkaha iyo ciddiyaha sidoo kale waxaa ka mid ah beedka oo ka qayb qaata korriinka carruurta ee dhinaca maskaxda waxaa kaloo ka mid ah caana yogurka waxay ilmaha ka caawiyaan habdhiska difaaca jidhka waxaa kaloo ka mid ah baradhada waxay ka mid tahay khudaarta ugu nafaqada badan waxaa isaguna ka mid ah boorashka waxaa la aaminsan yahay inuu yahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu quraacdo sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha korriinka carruurta ka qayb qaata sharaabka afakaadhada cambaha kalluunka iyadoo lagula taliyo waalidka in carruurtooda ugu yaraan wiigiiba 2 jeer ay siiyaan wax ka mid ah kalluunka